بسم الله الرحمن الرحيم waxaan xog faahfaahsan ka bixinayaa safarka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo wafdigiisa aynu ku joogno magaalada Baqdaad ee caasimadda wadanka aan walaalaha nahay ee Jamhuuriyadda Ciraaq. safarka Ra'iisul Wasaaraha oo ah mid rasmi ah oo galay maanta maalintiisii labaad ayaa Ra'iisul Wasaaraha waxa uu kulamo isdaba jooga ilaa shalay ilaa maanta uu la lahaa madaxda ugu sareysa wadankan qaar kamid ah oo ay ka wada hadlayeen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga soo jireenka ee u dhaxeeya labada shacab iyo labada dawladood ee Soomaaliya iyo Ciraaq. Ra'iisul Wasaaraha waxa socdaalkiisa uu ku saleysan yahay saddex arrimood oo muhiim ah waxaana ay kala yihiin midda koowaad xoojinta cilaaqaadka u dhaxeeya labada wadan ee Soomaaliya iyo Ciraaq gaar ahaan sidii loo cusboonaysiin lahaa isla markaana marxalad cusub loo gaarsiin lahaa xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya labada dawladood iyo labada shacab kuwaasi oo isugu jira arrimaha ganacsiga dhaqaalaha arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo wixii la mid ah. qodobka labaad waxa uu ku saabsan yahay arrinta amniga oo runtii ah arrin ahmiyad gaar ah ay siinayso xukuumadda danqaran oo sida intiina badan aad ka warqabtaan wadankan Ciraaq iyo Soomaaliya ay dhinacyo fara badan iska shabahaan gaar ahaan burburkii ku yimid labadeena dal iyo waliba dagaalka argagixisada waxaana wadankan uu ka soo kabtay runtii isla markaana uu ka adkaaday argagixisadii dagaalka ka waday halkan taasi oo marxaladihii adkaa iyo khilaafaadkii u dhaxeeyay dadkooda ay guulo waaweyn ay ka gaareen sida darteed maanta Ciraaq dhibaatadaasi waa ay ka soo kabatay waana ay ka adkaatay kooxihii argagixisada marka inaynu ka baranno duruus ama casharo arinta la xiriira ayaa ujeedku yahay iyo sidii labada wadan ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada. qodobka saddexaadna waxa weeye in Ra'iisul Wasaare Hamza Abdi Barre uu la wadaago mas'uuliyiinta iyo madaxda wadankan horumarka dawladda Soomaaliyeed ay samaysay muddadii labada sano ee ay jirtay oo ay ugu horeyso arrinta amniga oo runtii wax weyn laga qabtay dagaalka khawaarijta lagula jiro oo isna guulo waaweyn laga gaaray iyo sidoo kale arrimaha horumarinta dhaqaalaha wadanka oo Soomaaliya maanta deyntii laga cafiyay in aanu ku biirnay ururka East Africa Community oo maanta Soomaaliya fursado badan ay haysato in arrimaha horumarinta bulshada xukuumaddan dan qaran muddadii labada sano ay jirtay wax weyn ay ka qabatay arrimaha adeegyada shacabka la siinayo ee dawladdu ay bixiso iyo waliba guushii ugu dambeysay ee dawladdan ay xaqiijisay oo ah in xubin aynu ka noqono golaha amniga ee qaramada midoobay sanadka soo socda 2025 marka saddexdaasi qodob ayaa ugu waaweynaa socdaalka Ra'iisul Wasaaraha ee wadankan Ciraaq oo ah sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga labada wadan u dhaxeeya sidii arrimaha amniga looga kaashan lahaa oo dawladda wadankan Ciraaq mas'uuliyiintii Ra'iisul Wasaaruhu uu la kulmay oo uu ka mid yahay dhigiisa Ra'iisul Wasaaraha wadankan Mudane Maxamed Shiyac al-Suudani uu ballan qaaday isla markaana la isku afgartay in Soomaaliya gacan laga siiyo la dagaalanka argagixisada iyo sidii amniga looga saacidi lahaa